maalin wanaagsan dadweynaha Soomaaliyeed ee nagala socda website-ka Hargeysa goobtan joognaa waa stadium-ka ku yaala magaalada Toronto ee dalka Canada ee la yiraahdo Bathurst Stadium oo ku yaala magaalada weynta Toronto waxa ila taagan gudoomiyaha sanadkan 2008 ee Somali Week Faarax Oday oo ah nin ciyaartoy ka ahaa Soomaaliya kubadda kolayga oo aan ka ahaa Soomaaliya Faarax oo ah sanadkan gudoomiyaha Somali Week Faarax waxa ku leeyahay ku soo dhawo barnaamijka Hargeysa online waxaan ku weydiinayaa bal nooga waran ciyaaraha Somali Week sanadkan sida u soo abaabisheen iyo inta qof oo guddi oo ka kooban tihiin iyo magacyadooda bismillaahir rahmaanir rahiim horta buugiga waa salaamantahay indo ka socdaana webmaster-ka Hargeysa aad baa u mahadsantihiin maadaama halkaan noogu timaadeen maanta ciyaarahan dhowr iyo 10 sano waa socdeen sanadkan waxaan ka ahay gudoomiyaha kubadda cagta iyo kolayga oo isku jiraan ayaan gudoomiye ka ahay doortay sanadkan ciyaarihina si fiican bay u socdaan waxayna bilowdeen July 3 ayay bilowdeen sidoo kale yaqaaniinba marka hadda waxaa soo soo haray 3 waxaa ka soo qayb galay 12 kooxood 6 kooxood waxay ka yimaadeen dibadda 6na gudaha ayay kamid ahay markii hore waxaa hadda halkan final isugu yimid oo soo soo haray kama dambeystii kooxdii hore oo sanadka hore koob qaaday London Stars iyo Banaadir ayaa ciyaartii kama dambeysteen maanta ilaa hadda ay socotaan kala sheegi kareen qolada badan inkastoo ay Banaadir ay 2-0 ku hogaaminayso ciyaartii waxaan ku weydiinayaa wadamada ay ka yimaadeen kooxaha 6 dibadda ka yimid waxay ka wada yimaadeen England kooxaha England iyo waxay ka yimaadeen North America iyo especially in America ay kooxaha badankood ka wada yimaadeen iyo qaar 6 kale oo ah Canada oo badan 6 badan oo Canada waxaa garoonkan maanta dad gaaraya 5 ilaa 10 kun oo qof baa jooga oo dadweynaha Soomaaliyeed iyo gobolada dariska la sida Ohio iyo Michigan iyo state-ka maartay dad badan baa ka yimid runtiina ciyaartan waa ciyaar aad u weyn oo sida Hargeysa laga arki doonaba maartay sawirada marka maxaa sanadkan oo dadka sidan ugu soo baxay oo sidan maartay dadweynaha Soomaaliyeed ugu soo baxeen ma ciyaarta iyo ciyaar wanaagii maamulkiina wallahi dabcan taasi waa noqon kartaa laakiin inkastoo sanooyinkii badan aan qaban jirnay dadku ay aad u badnaayeen ma jireen ciyaaraha ay aad u fiirsan jireen u badan yihiin marka ciyaarta final noqoto dadku waxaad u malaynaysaa inay meel walba ka imaanayaan aad u xiisanayaan ciyaaraha maanta Somali Week waana waqtiga kaliya dadka Soomaalida ama caruurtoodii ama dadkii odayaasha ah ama wax garadka ah ay isku yimaadaan ay ku enjoy kareen ama maartay ku madadaalistaan waa meesha kaliya Soomaalida ay timaado ama maartay wax ku qabsato waxaan filayaa waddanka oo dhan baa meesha wax kale jira ma maleeyo waa gartay gudoomiye waxaan ku weydiinayaa meeqa qof ayaa guddiga sanadkan ciyaaraha soo qaban qaadiyay ay ka kooban yihiin iyo magacyadooda wallahi magacyadooda ma wada koobi karo laakiin dad badan weeye ilaa dhowr iyo 10 waa gaarayna maxaad magacyadooda ka xusuusan waxaan ka xusuusan karaa Mukhtaar kooda taqaaniin ciyaartooyga kooda cagta Maxamed Faarax odayga noogu weyna meesha Maxamed Faarax dabdamis oo ahaa refereega ahaa waxa kaloo kamid ah Ciise Madoowe gudoomiyaha kubadda cagta sanadkan waxa kaloo kamid ah Daawud oo basketball-ka iga wada ah waxa kamid ah oday oo samigay ah Mursal oo qabaqabiyaha meesha kamid ah waxa kaloo kamid ah ninka xisaabiyaha ah موسى هل سؤالك أيضا فينيش هاي وحكلوا إيمدا وحكلوا كمدا ركفر بدن عبد وحكلوا كمدا بيتي وحكلوا كمدا خالد وحكلوا كمدا يونس وحكلوا كمدا الله مستعان أحمدين وحكلوا كمدا دان حسوستو عن وحي مام سنين إنكستو ما تفاعل تايوان مارتي maskaxayda isku keen karin Muuse xisaabiya ah waxa kale oo kamid ah Allah musta'an Ottawa inkastoo inta uu ciyaaray Cabdifatax oo ahaa sagana ragii guddiga wala jir laakiin wuxuu ciyaaray inta ugu dambeysay iftan waan ka filay inuu guddiga ku jira intaas ayay ahaayeen kala qaabiyay waxaad dadweynaha Soomaaliyeed ee ku dhageysanaya ee television-kan Hargeysa kala socda maxaad u jeedinaysaa oo maartay oo hadalkaaga gunaanadka ah oo dadweynaha u jeedinaysaa
والله waxaan ugu jeedinaa dadku aad bay u mahadsan yihiin waana meesha kaliya ay maaragtay caawimada iyo supportiga ay naga siiyaan oo waxaan aan qabanay dadka Soomaaliyeed ayaa nagu tagarfay oo lacagaha ay ku soo galeen ayaa ka qaadnaa inkastoo anagana lacagii aan ku celino dadkii dibadda ka wada yimid cuntadoodii accommodationkoodii dhan meelay ku ciyaari lahaayeen security stadiumkii marka aad iyo aad ayay dadka Soomaalida ah ay maaragtay u mahadsan yihiin waxaan kaloo aan u sheegayaa ugu darayaa ogaada dadkiina annaga ayaa wax qabna community-da wadanka dhisan organization wadanka dhisan waxba kama qabtaan wadankan ilaa ay hadda intaas waxay noogu dhamaaday waraysigan la yeelanay Faaraxaday oo ah gudoomiyaha sanadkan ee Somali Week 2008 ee magaalada Toronto haddana waxaan joognaa stadiumka Patras oo ciyaartii finalka isugu soo baxeen London Stars iyo kooxda Banaadir hadda kooxda Banaadir ku hogaaminaysa 2-0 waxaan u rajaynaynaa sanadkan sanadkiisa in ciyaaraha Soomaalidu ay noqdaan kuwa sii xoogaysta si dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool cariga Mareykanka iyo cariga Kanada ay uga badbaadaan waxyaabaha kale ee xun ee dalkan yaala wala mahadsantiin waxaana waraysiga la wixii ka imaanaya website-ka Hargeysa qaybtiisa television-ka wala mahadsantiin salaam alaykum mar labaad waxaa ku soo dhawaataan website-ka Hargeysa oo si toos idinka soo tabinaya garoonka ciyaaraha ee Patras waxaan la taaganahay hadda kooxda Iftin waa koox shalay tolo soo bandhigtay ciyaartii ugu qurux badneed ee sanadka laakiin nasiib darro waxay ku hareen 2-1 kooxda Banaadir uga raysay haddaan geeska ka bilowno magacaadi barqad waa ciyaartoy kooxda Iftin wuxuu ka yimid magaalada Minneapolis burhaan waa ciyaartoy yadii lagu asaasay kooxda Iftin wuxuu degan yahay magaalada Toronto Philippine wuxuu ka tirsan yahay isaguna kooxda Iftin wuxuu ka yimid magaalada Minneapolis Pasquale waa ciyaartoy isaguna ka yimid magaalada Minneapolis waana ciyaartoygii ugu dambeeyay 14 saacadood ugu dambeeyay laga degdeg u soo galay si uu ciyaarta ugu dambaysa u safto Pasquale waa ninkii shalay goolkii kooxda Banaadir dhaliyay wuxuuna ka ciyaaray numberka 7 wuxuuna ka tirsan yahay kooxda Iftin Bashir isaguna wuxuu ka yimid kooxda Minneapolis haddaba waxaan idin weydiinaynaa su'aalo yar oo kooban maadaama aad tihiin kooxda Iftin oo shalay aad soo bandhigteen ciyaar aad u qurux badan oo runtii dadweynaha Soomaaliyeed inay jeclaysteen qaabka aad garoonka u soo gasheen ciyaarta wanaagsan oo muujiseen maamulka iyo xaragada badan ee garoonka la soo gasheen sideed u aragtaan guuldaradii shalay idinku dhacday barqad baan ugu horeynayaa weydiinayaa wallahi wax kasta waa iska dhacaan ciyaar markii laba kooxood yeeshaan waxaa badisa marba kooxa badisa marka guusha ma wada raacdo labada kooxood marka waxa way dadaalkeena meesha ka soo hadii ilaahay adiguna sida u aragtaa Filipino wixii qornaa kulay waa dhaceen soo running fiican dirnay guushana waan raacaysa Pasquale adiguna sida u aragtaa كلي وحن دريمنا كلي مدام وشلا نقول في عن عيارني حدنا نقول سويني وحفظ إلهي حكيسي إلهي حكيسي كدعدي مركا أنا وحام لنا يعني ما أنت يعني disappointed دريمنا سببتو أشلا وحن سميني بلوني أدو في عن حدنا نقول شو نراعي ويسي maybe next year وحن جعلنا هاي السنة سنة كفي عن إن مدة نتكفي عن صوت دياري دون إن شاء الله. أدون هذا الشيء ضارك. same thing سيدا وقال إن شاء الله next year سيدا وقال لا إن شاء الله. waxaan rabaa inaan idin weydiiyo maadaama reer Minneapolis tihiin idin koo dhamay sideed ciyaaraha Somali Week intaas oo kun oo qof isugu soo baxaya runtii waa wadanka Canada Toronto meesha ugu weyn ciyaaraha Soomaaliya lagu qabto garoonka waa aragtaan si buuxo sideed u aragtaan filimkiina si maxaad dareemaysaa adiga Filipino wallahi wax la heli karo ma aha intaas oo Soomaaliya isku timid ma sha Allah garoonka waa wax maartay qof walba dreamkiisa marka skid intaas waxa inoogu dhamaaday waraysiga ka qaadnay qayb kamid ah ciyaartooyga Iftin oo dhamaantood qaarkood ka yimaadeen magaalada Minneapolis ee Afrika Mareykanka waasad u jeedaan ciyaartooygan waa dhalinyaro da'yar runtii waana shalay waxay soo bandhigeen ciyaar aad u qurux badan laakiin nasiib darro waxa raaci weyday guushii dadweynaha Soomaaliyeedna aad bay ugu riyaaqeen farsamadii iyo ciyaartii qurxooneed ay soo bandhigtay intaana waxay nagu dhamaaday barnaamijkii sida tooska aan idinka soo tabinaynay stadiumka Patras waxaad barnaamijkan ka daawan doontaan YouTube-ka iyo website-ka Hargeysa waana mahadsantiin
حنون كله شلي دقل إيجي وعشرة حنون كله